faqrigu ma ahan waxdaad u dooranaysid balse waa imtixaan ilaahay inagu imtixaamayo dhammaanteen ka haysta iyo kaan haysanba haddaba maanta sidaynu ognahay adduunku wuxuu ku sugan yahay xaalad aad u cakiran oo dhibteeda iska leh uu yaaban yahay kii wax haystay maxaad u malayn kaan waxba haysanba si aan u ogaano walaalaheena aan waxba haysan waxaanu tagnay xaafad ku taala duleedka magaalada Hargeysa taasoo ku nool yihiin 600 oo qoys oo danyar ah hooyo Amran iyo qoyskeegu waa xaafad ka mid ah xaafadaha waxayna inooga waramaysaa xaalkaygu siduu yahay. Assalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi. Magacaaga oo saddexan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Amran Maxamed Xasan. Dad mucaawimad noo soo dhiibay ayaan doonaynaa inaan idinku wareejino insha Allah biidnillaahi albaari hadduu Ilaahay idmo marka waxaad nooga warantaa axwaashaada guud iyo saad u nooshihiin iyo cideedin masruufisa. Ana horta gacan weyn Ilaahay baa laga helaa waxaan anagu masruufsanaa waa xoogayga oo marka horena ninkayguna xoogiisa u baahaa waxa adduun u haystay ma jirin dadka wuxuu ahaa dhiska ka shaqeeya ee kuuliga ama wastaada midku helaba ku shaqeysta imikana deesana xaaladiisa dhulka batala oo wax la gooyo lug bishii koobaad 20 baa la jaray baanka anigana la 8 sano waxa jirkayga ku jira waa barar ay korkayga ka muuqda bararkaasna Ilaahay baan ugu xamdiyaa wax cabasha iyo wax kale oo dhulka la galgalay ma jirto marka dhaqaatiirta waan wada maray in bishii imika labaad aduu 16 shaybaad ayaan ka soo galay dhakhtarka weyn waxba wali dawooyinkii isbedel kumaan helin waa nimcada Ilaahay baan ku jira wax gacan baxana waa samseer bandiba samsaha yar iyo migu soo haro iyo ma baxaba leeyahay maama kamida maamooyinka ku nool ee dalka yar ee waxba haysan ayaan soo booqanay si aan barnaamijkeeni ugu gudbino xog ka qaadan insha Allah hooyada mahadsan magacaaga Sare Daahir Bilaalayda waxa weeyaan qoys kamid ah xaafada ayaan ahay dhisan waxa weeyaan ninkaasi waxaan ku ridaadiisa waad arkaysaa waqtiga uu joogo ilaa xanuun la oo la dhashay weeyaan ilaa waqtiga silsiladaas ku xiran Ilaahay uun baana noogu samirsanoo maanta ma taqaanay wax walba Ilaahay uun baa keena qaadina kara marka xaafad iska danyarana waan ahay dadkii shaqeynayna waa iska silsiladaysan waxaanu soo diiwaan gelinay dad aad u tiro badan oo iskugu jira caruur agooma ah waayeel aan wehel lahayn iyo dad maskaxda ka buka walaal laga yaabaa halka dollar soo dirisid inuu afuriyo qoys dhan walaalaha adun bay ku sugayaan cid kale oo u maqan ma jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta wax qabadkii ugu horeeyay Hargeysa nooga hirgala insha Allah taala wali xaafada magaala Biixi waxa weeyaan insha Allah taala dadkan halkan niga muuqda waxa weeyaan 25 qof oo kale dibadda ay nagu sugayaan marka 50 qof aan ugu talagalnay 50 qof alxamdulillah waa maanta way nooga dhameystirmeen insha Allah rajadeedu waxay tahay intaas idin ka sii badan inaan sii wadno waan ducaynaynaa insha Allah rahmaanir rahiim ifku waa dharaaro laguma waaqamayo yoomal basharka kuwa liibaanay Allah idin ka dhigo inta kalkii soo bixiyay inta u hawlgashayba kuwa liibaanay Ilaahay idin dhigo maalinta la qadayn yoomal basharka la taagan yahayna kuwa dalaalimada hadka la saaray Allah idin ka dhigo inta la nool yahayna kuwa liibaanay hadkooga lagu liibaanayna Allah idin ka dhigo awlaadda iyo waxa tabisanay waxa idin ka maqana Ilaahay idin soo dhaweeyo sidaad noo gargaartana Ilaahay idin gargaaro haddaba walaalayaal dadkaas adigay ku sugayaan adigayna afurkaa sugayaan insha Allah walaalayaal farkaliya forma dhaqdo aan iscaawino ani kaliya ma awoodin aan dadkaas caawiyo dhammaanteen aan iskaashano garbaha aan isqabsano walaalahaasna aan caawino hadda walaalayaal meelaha lagu ururinayo sadaqada walaalaha jooga Puntland waxay isticmaalayaan sidaan xidig 883 xidig numberka oo ah 616 6 xidig lacagta ay gelinayaan yani saas u tuuri karaan walaalaha EVC ga isticmaala ama walaalaha yani xawaalad ku soo tuurayana iyagan isla numberkan ay isticmaali karaan oo furuhu 6 yahay 66 isla numberkaas ay isticmaali karaan sidoo kale walaalaha Soomaaliland jooga ee zaad isticmaala Telesom salomada saas amanaya waxay ku soo tuurayaan insha Allah iyagana +252 6 3
afar sideed shan labo eber saddex saddex walaal nasrudiin dhaho ayaa ururinaya insha allah walaalkaas ay ku hagaajinaysaan walaalaha embese isticmaala iyaga waxay ku tuuri karaan iyagana plus 254 722 826651 shaashada ayaad kaga jeedaan magaca kuu soo baxayana wuxuu noqonayaa walaal abshir sheekh jaamac insha allah walaalayaal garbaha aan isqabsano walaalaheena aan taageerno adiga xataa haddaad waxba hayn walaal videogan haddii aad dad kale sii gaarsay oo ka faa'iidaystaan khayrkaas oo akoonkooda aakhiro wax ku shubtaan intay bixiyaan iyo intay ajar helayaan in la eg ayaad adiguna helaysaa walaal jazaaka allahu khayran tobanka beri ee ugu horeysa ramadaanka aan walaalahaas aan furkooda u diyaarino السلام عليكم. رمضان شهر واحد كالعام بل هو زائد قد فاز فيه العابدون رمضان هل هلاله يا رب عتقا نرتجي ونعيم ليس بمنتهي وبكف أحمد نستقي